السلام عليكم kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale qisada maanta waxa weeyaan qarsoomidii ama waayitaankii Richard Hoagland iyo sida ay boolisku ku soo heleen 23 sano kadib markii la waayay. Richard waxa uu ka shaqayn jiray shirkad caymiska ah. waxa uu guursaday 1982 gabadh lagu magacaabo Linda. waxay u dhashay laba wiil oo lagu kala magacaabo Maasio iyo Dag. sida ay xaaskiisa Linda ay sheegtay, Richard waxa uu ahaa nin fiican, aadna isku wanaagsanayeen, wax khilaafaad ah inaan dhexdooda ka jirin. sidoo kale waxay Linda sheegtay inay waqtiyada fasaxa ay u safri jireen wadamo kala duwan iyo magaalooyin kala gedisan, aanay ku wada noolaayeen nolol farxad leh oo qoys walba ku riyoodo ama ku hamiyo. dhammaan waxaasi oo dhan way isbedeleen 10 Febraayo 1993 maalinkaas Richard shaqadii kama soo rawaxin. maalinkaas Linda waxa ay joogtay guriga. waxa soo wacay Richard isagoo jooga shaqada. waxa uuna u sheegay inuu xanuunsan yahay una baahan yahay inuu cusbitaal degdeg u aado. Linda waxa ay ku tiri aan ku imaado si aan gaariga kugu qaado cusbitaalka ku geeyo. waxa uu ku yiri intaad imanayso ma sugi karo, hadda ayaan u baahanahay inaan cusbitaalka si dhaqso ah u aado. markiibana telefoonkii ayuu ku damiyay isagoo u sheegin cusbitaalka uu tagayo magaciisa. markii uu gurigii ku soo noqon waayay, Linda sida xaas kasta oo ninkeeda jecel aad bay warwartay sababtoo ah umuu sheegin cusbitaalka uu aadayo. waxa ay bilowday inay la wada xiriidho cusbitaaladii kaaga dhawaa meesha uu ka shaqaynayay, balse waxaa loo sheegay inaanu jirin qof Richard la dhaho ama lagu magacaabo oo soo galay cusbitaaladaasi. Linda markii ay ka weyday cusbitaaladii oo dhan waxa ay istiri armu si kadis ah u safray isagoo aan ku sheegin, balse waxa ay isweydiisay sidaas maxaa u sameynayaa ilaa wax khilaafaad ah dhexdooda ma oline. balse waxay aragtay dhammaan dokumentiskiisii oo dhan sida baasaboorkii, dharkiisii oo guriga yaala, iyo dhammaan waxyaabihiisii sida jaakeedkiisii ama koorkiisii oo guriga yaala. waqtigaasi waxa ay ahayd bishii Febraayo oo aad buu wadanku u qaboobaa. intaas ka bacdi Richard family-giisii iyo asxaabtiisii way raadiyeen ilaa markii dambe ay la xiriireen booliska arrinkiina sheegeen. waxaa ka soo wareegtay muddo, waxaa ka soo wareegtay maalmo, waxaa ka soo wareegay bilo, walina wax warar laga ma hayo Richard. ilaa maalin maalmaha kamid ah ay boolisku ka heleen gaarigiisii meesha lagu baarkimo gawaadhida ee madaarka ku taala. 10 sano markii ay ka soo wareegtay wax macluumaad ah oo ku saabsan Richardna aan la helin, boolisku waxay u aqoonsadeen inuu dhintay Richard. muddo ka bacdi Linda waxay guursatay nin kale, waxayna iska bilowday nolol cusub. intaas ka bacdi maalin maalmaha kamid ah kuna beegan sanadkii 2016 Linda waxa soo wacay dambi baare ka tirsan booliska qaybta Florida laguna magacaabo Anthony. wuxuuna weydiiyay Linda ma taqaanaa nin lagu magacaabo Richard. markii ay maqashay magacaasi way argagaxday, waxayna ku tiri dambi baarihii haa waan aqaanaa, waa ninkaygii hore ee dhintay 23 sano ka hor. balse dambi baarihii wuxuu yiri muu dhiman oo uu nool yahay, wuxuuna ku xidhan yahay saldhigayga. intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa qaybtii hore ee ku saabsaneyd qisada Richard Hoagland. la soco qaybta dambe.